magacaabistas isbedelada waa sida aad u aragtay waxaa magacaabay maanta ama shala aan dhaha xubnihii maamulka gobolka awalna waxaa horey loo magacaabay oo isbedelo lagu sameeyey degmooyinka ujeedada laga leeyahayna waxaa weeye in macluumaha burbur siyaasadeed uu iska yiri jiray oo gobolka dib u dhac uu ku yimid Jubbaland ay hana weyday shacabkii reegado iyo guud ahaan raabka Jubbaland in maamullo cagahooda ku istaago oo beesha caalamka iyo hay'adaha amniga iyo horumarka bulshadaba u adeego in la helo marka yaa laga helayaa magacaabay maadaama tiri Jubbaland way socon weyday maamul hore weeye wixii hadda ka horeeyay way shaqeynayeen hadda adiga xageebaad ku tiirsantaa marka magacaabays maadaama Jubbaland aad leedahay waa maamul hore oo aan shaqeyneen horta waxaan u shaqeyneen marka leeyahay xafiis banaanaanayo ma jiro qofka xafiiska inta laga bedelayo qofka la keenayo asaga joogayo ka noqonayo si hay'adka aniga kula hadlayo si hay'ad xafiiska ka hay qof walba Jubbaland aan xafiisku jooga si hayu ka yahay marka anigu waxaan u magacaabayaa anigu waxaan raacsanahay qawaaniinta iyo dastuurka dalka u yaalo oo ay hogaaminayso dawladda federaalka Jubbaland sababta waa state oo kamid ah federaalka Soomaaliya ayay ahayd laakiin doorashooyinkii qabsoomay iyo habsami u socodkii hawlaha siyaasadeed ayay isku fahmi waayeen ayagii dawladda iyo bulshada inta badanba wasiir hadii aad ku shaqeynayso magacaabistaadii ama aad si hay'ad tahay waxa weeye wasiirkii baa jooga oo arrimaha gudaha oo shaqadii ku jira oo asna si hay'ad kala hadaba ku raacsiyaad wax u wadid isagoo wadankii jooga waliba Jubbaland ku sugan oo aad isku mar labadiin idin la magacaabay waxa aad shaqada aad ku wadan karto isagoo uusan ku wadan karin maxaa way waa ma santahay su'aal muhiim ah way horta hadii mar aad tahay si hayo oo waxaad u madax banaan tahay ama aad u leedahay awood wixii dastuurka ku ogol yahay markaad wasiirka ahayd inaad qabato iyo dastuurka ku ogol yahay waxaa dhacay Jubbaland hadii laba kooxood bay noqotay koox shacabka inay kalsooni ka haysato adoogtahay adigoo oo dawladda raacsan iyo koox ku adkaysanaysa doorashadii Agost yaan sharci aan ku nahay dawlad ku nahay ku adkaysanaysa labadaas ay noqdeen dastuurka dalka markii yirahdana waxaa sharci ku taagan qaybta la jirta dawladda shacabkana ka haysata kalsoonida wasiirku waa sax waa saaxiibkay waa wasiirkii waa si haya laakiin waxa meesha ka maqan kalsoonidii marka adiga lagu wadaa waaya wasiirku shacabka meesha ka maqan anigu marka waxaan haystaa shacabkii kalsoonidiisa shacabka wuxuu qabaa doorashada Agost dhacday inuu sharci aysan ahayn buu qabaa dawladda Soomaaliya waxay qabtaa sharci inaysan ahayn aniga markii intaasaan yaan fikirkaas ku raacsanahay maandeediya wasiir meel inta shacab la tagay cod laga qaaday oo ay doorashadii ku xaaraantimeeyeen ama ay ku ogolaadeen ma hayno laakiin dawladda dhexe goorma ay adigu ku magacaawday inaad si haye noqoto yaa u siiyay awood ama sharci ay wasiir Jubbaland si haye ugu magacaawday dawladda ay magacaawday anigu kuma dhihin Hussein waxa waaye aniga si haye inaan noqdo waxa ay ogolaanaya sharcigii aan ku ahaa wasiirka markii Jubbaland wada socoto doorashada ka hor maxaa diidayay inuu wasiirkana oo asna si ahaaday si haye ama wasiir buuxa si ahaad wasiirka si haye waa xafiiskiisa si haye ka yahay laakiin kalsoonida asaga hadda maanta aniga midaan haysta asaga maanta ma haysto aniga maanta warqad intaan qoro inay dawladda federaalka Soomaaliya aqbasho shacabkana ay aqbalaan baa aniga maanta aan haysta asaga inta meeli karo dawladda iyo Jubbaland waan ognaa waxa ka dhaxeeyo wanaag kama dhaxeeyo labadooduna waxa ay sameeyaan adduunyadu iyo dadka sharci yaqaanaba waxay u arkaan waxaan sax ahayn oo deegaanka iyo dadka lagu curyaaminayo ma ii sheegi kartaa qodob dastuurka federaalka ah ama dastuurka Jubbaland kamida oo adiga awoodda ku siinaya wasiirkaagina u diiday horta hadda tiraahdo dawladda federaalka iyo Jubbaland waxay marka sharciga la raaco waxay noqonayaan labadaba wax sharci siinay ma taas sax ma dawladda Soomaaliya dalka ayda mas'uulka qof walba oo Soomaali ahna waxay siin kartaa mandate ama siin kartaa
ama waxa uu qabtay bay ku taageeri kartaa ama wuxuu qabtay bay ku ciqaabi kartaa oo dambi noqon karo taas horta dawladda iskale cid la siman dawladda oo ayada iyo ay isu dhigmaan runtii ma jirto ma baystay waxay qabaan dawladdu waxay aniga waxaan rabaa inaan kuu sheego meesha horta waxaa lagu hadlayaa sharciga dalka u degan baa laga hadlayaa Jubbaland dastuur bay leeyahay dastuur federaalka dalka ka dhaxeeya jiro aniga si hayaha xafiiskayga aan ka ahay waxaan sharciga wadanka u degsano dawladda ay mas'uulka ka tahay ayaan u hogaansanahay wasiirkana waxaa laga yaabaa fikir kale inuu qabo marka taas ayaa ay ogolaanaysa inaan shaqaas qabto wasiir dastuurka Jubbaland waxa uu dhigayaa xubin kamid ah maamulka ama qof xil haya hadii uu ka maqan yahay Jubbaland meel kamid inuusan sameyn karin xilka qaadis iyo xil magacaabis hadii aan taada wajahna ama kugu raaco ayna si hayata muqdisho ku sugan tahay dastuurka Jubbaland dhigi maayo inaad xil magacaawdid ina xil dad ka qaadid adigu deegaanka ka maqan sidee soo waafajinaysaa waa mahadsan tahay ayaysan kugu daba gudoominay Xuseenow maqnaasho markii laga hadlayo dalka gudihiisa ma waa dalka dibadiisa Jubbaland haddaad ka maqan tahay Kismaayo oo Muqdisho joogta ma aha inaadan shaqo qaban karin ma aha taas macnaheedu saas ma aha waxa weeye haddaad dalka gudihiisa joogto shaqada aad xaq u leedahay waa qaban kartaa marka waxa weeye hadda warkaaga wasiirku waxba ma galay anaa wax galo ku xigeenah isagoo isku marna idin la magacaabay isku maamul aad ahaydeen hawshaada wadaya maya anigu wasiirku wax ma galo kuma dhihin waxaan ku yiri waxaan ka hadlaynaa meesha ay wax marayaan iyo nidaamka dalka u degan waxa uu dhigaya ayaan ku sheegayaa wasiirku wax uu galaa waa wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha waa siihaya xafiisku siihaya ka yahay laakiin waxa yimid kala aragti duwanaansho siyaasadeed baa timid inta horta ma fahanta kala aragti duwanaanshaad aniga tiimka aan ka mid ka ahay dawladda federaalka iyo dastuurka dalka u deganaa iyo shacabka reer Jubbaland rabitaankooda ayaan taageersana wasiirka tiimka qabo inay Agoosto doorashada dhacday la socodsiiyo oo ismaandhaafkaas ay dhinaca kale u qabo ayuu ku jiraa wax hadda aniga wasiirka gaar ah oo naga dhaxayo xumaan ahna ma jirto waayo wasiir taas marka waxaan rabaa inaan ku sheego kala aragtida wanaagsan siyaasadeed baa timid hadii loo fikir la kala qabana mid baa dastuur u dhawaanaya iyo shuruucda dalka u taala midna waa inuu ka suurtagal wasiir inta aragtida marka saas u qaadato meesha qaldan laga fiirin baa loo baahan waa maasanta dadka u daynayna wasiir adigoo gada jooga intaadan dawladdu xageeda u soo weecan waraysi aan kula yeeshay waxa igu tiri dawladda federaalka ah Jubbaland waxay ka wada qalalaaso sababtoo ah xaq uma lahan in gudoomiye degmo oo Jubbaland ka tirsan ay xil ka qaado ama ay xil u magacaado ama ay fawda ka abuurto iyadoo state ama dawlad goboleed dawladii dhexe kamida u jiro haddana waxaad leedahay intaas oo dhanba way isrogtay oo xaaladdu waxay joogtaa inay saxanta sidee isu waafajin kartaa warkaagii shalay iyo kan maanta ay wala hadlayso Xuseeno horta warku waa margi meesha loo jiido u jiidmaya saxaafaduna warka inay fool xumayso wax hadda macnaha xigmad ay u sameynayso ma jirto waxa weeye bini'aadanka waa isdaliili karaa dastuurka waxba la isku qabsan karaa qalad iyo sax baa isbarbar imaan kara aragtidu qofka qabi karaa aragtida in laga daaweeyo inta laga hadlo oo la soo hordhiga nidaamka meesha yaala loo wada noqdo oo laga wada hadlo in laga wada isla daldiga imaan karta waxa aniga aan diidana dawladda Jubbaland inay jirto oo ayada xaq u leedahay inay degmooyinka iyo deegaanada maamusho taas right waa ku raacsanay haddana waa qabaa laakiin maxaa yimid markii lismaan baasho maxaa yimid waxa aniga aan diiday oo dawladda iyo aniga isu kana keen waxa way hadii shacabka in lagu dul dagaalamay xaaladda gaartay qodobka iyo cuntuna way aniga kaas waa ku soo gabagabeynaya wasiir dadka Soomaaliyeed waa sharci yaqaano waxa laga yaabaa in badan oo kamida inay ka aqoon badan yihiin dhinacyadiin isaya ama idin la mid yihiin qaarna idin ka hooseeyaan laakiin wax fahmayaan Soomaaliya gaar ahaan Gado waxa ka jira iyo Jubbaland oo dawladda federaalka ka wado iyo Jubbaland ay wadaan dhamaan waxa la sheegay inay baalmarsan yihiin shuruucda dalka u yaala oo ay yihiin qaar iska tuur iyo dana siyaasadeed oo gaara oo aan masaalix guud ku dhisnayn armaa intaad bedeshaan arrintan dadkan dhibaato u gaar ah haysatay ka dulqaadi kartaan jawararkiin ku-talagalkana horta waxa waaye wax kasta oo dhib oo jiro oo ama Soomaaliya guud ahaan haysto ama Jubbaland haysto ama gobolka Gado haysto annaga ku-talagalkayga aniga shakhsiyan aragtiyada waa in la soo afjaro oo wanaag lagu bedelo waaye runtina qaladaad uu imaan karaa
laakiin aniga mas-uuliyad yiraahdo principally dalka ayaa mas-uulka ah dalka dowladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dalka iyo dadka mas-uulka ah isfaham siyaasadeed markuu jiro qof walba shaqada loo xil saaro qabanaya isfaham siyaasadeed markuu imaan waayo decision maker waxa dowladda federaalka ah aad iyo aad u mahadsantahay laakiin wasiir dowladdu hadday sharciga ilaalin weydo lagu soo doortay oo dastuurkii iyo xeerarkii ay baal marto mas'uuliyadeedu maxay taraysaa arrintaas dad baa ku shaqo leh oo dowladda ay u qaabilsan shuruucda dalka inay ilaaliso baarlamaan ha ahaado maxkamadaha ha ahaadeeno looyaraha ha ahaadeeno qareeno iyo dad kale ha ahaadeeno madaxweynaha ha ahaado ra'iisul wasaaraha ha ahaado shaqadaas dad baa iska leh oo u xil saaran ayaga lagala xajoonaya laakiin mar haddii isdiidanaan siyaasadeed hadday imaado gol intay ka imaanayso waxbaa qaldanaan taas sax way ku raacsan